بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga IT-ga ama information technology ee ku baxa luqadda afka Soomaaliga magacaygu waa Cabdinaan Ismaaciil emailka sidii caadada ahayd info@sologroups.com security and testing on ku barano dhanka security-ga ee IT-ga kaasoo arday aad u fara badan ay xiiseeyaan isla markaana ay soo weydiiyaan su'aalo aan doonayno cashar inaan ka sameeyno waxaan baran doonaa su'aal ardaygu soo weydiiyay kaasoo qoseeya Facebook security isla markaana aad u fudud dadka qaarkoodna ay yaqaanaan kuwana qorina aan filayo in ay hore ka isticmaali doonaan kan ku xiga waa C-gan ma ahan C-gi programming ma ahan waa C-ga computerka ku jiro oo laga dhigo self destruction laga dhigo marka sababta lagu dhigo waxay tahay waxa laga yaabaa computer aad isticmaalaysid waxyaabo sir ah adiga ku gooni ah ay ku jiraan ama barnaamij ha ahaado ama software ha ahaado ama wuxuu doona ha ahaado haddii lagu yimaado hal button oo riixdo ayuu gabi ahaantiiba ka saaraya waxyaabaha aan loo baahnayn kaasina waa self destruct ama isburburiye ayaa la yidhaahdaa ugu dambeyntii waxaan sameynaynaa DDoS attack code yaraan ku samayn doono kaasoo ah qaabka attack lagu sameeyo shabakadaha qaarkood kaasi waa domainka ayaa waxaa la sameynayaa denial service ayaa lagu sameynayaa marka kuwan waa basic kuwaas ayaan baran doonaa ugu horreyntii waxaan ku bilaabi doonaa dhanka iyo Facebooka ardayga wuxuu soo weydiiyey waxaa shaki aan ka qabaa in Facebookayga qof kale uu ila isticmaalayo oo maybe la hacking gareeyay sideen ku ogaan karaa marka waa very simple application waxaa jira ku dhex jira dhanka security-ga oo ay ku soo direen Facebooka oo aad ku ogaan kartid qof kale hadduu hore u isticmaalay qof kale hadduu meel kale uu ka soo galay aadan aqoonsan qof kale hadduu isticmaalay device sida iPad iPhone wuxuu ahaadaba iyo meeshuu ka soo galay isla markaana ka hortegi kara marka ugu horeyn si aan ku ogaano waxaan ku dhex jirnaa saa ku aragtaan shabakadda Facebooka ayaan ku dhex jirnaa oo tan macalinka ah saa awgeeda waxa ugu horeeya ee aad ku ogaan kartid waa adigoo halkan taga dhankan ayaa tegaysaa waad riixaysaa waxaad aadaysaa dhanka iyo settingka ayaa tegaysaa markii aad tegtid isticmaalaha halkan ku jira waxaad tegaysaa security ayaa tegaysaa kadib waxaad leedahay active sessionka meesha ku qoran tahay logged in from waxaa laga soo galay xaafadan oo marka ugu dambeysa iyo 12 meelood kala duwan marka halkan ayaad riixaysaa halkan ayaad ku eegaysaa meelihii laga soo galay tabcan waa xasuusnaan kartaa meelaha laga soo galay oo idil inta badan meelaha laga soo galay waxaad ku aragtaa guriga iyo inuu yahay xafiiska kaasoo ah Enfield oo xafiiska ah iyo guriga oo ah Ilford halkan ay ku qoran tahay iyo IP addresska laga soo galay markii haddii ay dhacdo inaad aragtid waxaadan aqoonsan oo is leedahay qof kale muu soo galay kaasi ayaa ku xaqiijinaya waxaan leedahay end activities waad ka xiraysaa marka halkan lagama soo geli karo hadduu isku soo dayno qofka waa laga blocking garaynayaa saa awgeed ayaad ku ogaan kartaa meesha laga soo galay iyo locationka IP address waa kala duwan location base on IP address oo wax yar qarsan iyo kan kale oo ka duwan sidana marka qaabkan ayaa loo ogaadaa in qof uu soo galay in kale waxa kale la socda session haddii aan xiro recognize a device kaasoo ah you have one recognized device kaasoo wuxuu noqonayaa in uu yahay iPhone laga soo isticmaalo marka waad garan kartaa ka isticmaashid dhankan waxaa ku jira code generator iyo login approvals use extra security ayuu noqonayaa kan kaasoo ah require a security code to access my account from unknown browsers haddii laga soo galo browser aan la aqoonin wuxuu code kugu soo dirayaa si fududna aad ku heli kartaa mobilekaaga aad ku heli kartid marka kuwan oo dhan waa dhanka security-ga ee Facebooka marka sida ugu fudud waxaad ku ogaan kartaa in uu qofka uu soo galay in kale active session ayaa laga ogaadaa kaasaas ayaa loo isticmaalaa kan labaad waa self destruction ayaanu sameynaynaa marka intaanu sameynin waxaan aadayaa Windows halkan yaala saa ku aragtaan operating systemka ayaa ku jira wax walba uu shaqeynayaa
computer haddii aan idhaahdo property halkan waxaan ku aragnaa in windows activated halkan uusan ugu jiro wax walba ay shaqaynayaan cpanelka uu shaqaynayo halkan haddii sidaan u tago marka code yar ayaa la qorayaa oo sameynaya self destruction marka waxaa muhiim ah inaad ku egtaan oo keliya computer VMware inaad ku egtaan marka inta aanan destruction ku samayn waxa ugu horeeya aan sameyno wuxuu noqonayaa code ayaan isticmaalaynaa ka dhigaya systemka restart ka dhigaya marka ugu horeyn waxaan tegayaa startka ayaan tegayaa waxaan isticmaalayaa notepad ayaan isticmaalaya ugu horeyn aan isla eegno notepad-kaaso halkan aan saan soo dhigayo si loo wada arko marka notepad-ka markaan soo dhigo waxaan qorayaa oo aan sameynayaa code self destruction systemka ayaan qorayaa codekaaso waxaan ka dhigayaa asan ayaan ka dhigayaa add ayaad leedahay halkan add echo waxaan filayaa dhawaaqa inaad taqaanaan waxaan leeyahay off hoos ayaan usoo degayaa delete oo del ah space ayaad leedahay boqolkiiba ayaad ku daraysaa kadibna waxaad leedahay system drive boqolkiiba ayaa kusoo xiraysa sidan kadibna waxaad sameynaysaa slash backward waxaad sameynaysaa waxaad leedahay xidigtan ayaa sameynaysaa dot ayaa leedahay xidig kale ayaad sameynaysaa waxaan filaya inaad taqaanaan slash backward ayaa kusaan usoo xiraysaa kadibna f kadib waxaan sameynayaa s kadibna q ayaan sameynayaa kadibna ugu dambeys waxaan leeyahay shutdown self destructionka markii aad sameysid shutdown ku sameeyaan leeyahay systemka waxaan leeyahay -r -f -t waxaan leeyahay timekan ha noqdo 00 ha noqdo ayaan leeyahay waqti bahasiin waan xirayaa si aan u save gareeyo save ayaan leeyahay waxaan tegay halkan drop downka all files ayaan leeyahay waxaa ku qoraysaa wixii aad doontid waxaan ku qorayaa tusaale ahaan virus.batch oo ah batchka kadibna waxaan leeyahay halkan ayaan soo dhigayaa refresh ayaan leeyahay waxaan filayaa in uu galay dhankay documentiga waa kan halkan ayuu galay aan ka soo saarayaa halkan ayaan soo dhigayaa marka wax walba waa samaysid computerkaaga caga ku isticmaali kan waa self destruction systemka oo dhan ever ayuu ka dhigayaa marka waxaa jira system kale oo restart ku sameeya laakiin destruction aan ku sameynin right click ayaad leedahay new ayaad leedahay shortcut ayaa sameynaysaa halkan waxaad ku qoraysaa qaab u eg kii hore oo kale waxaad leedahay boqolkiiba ayaad ku qoraysaa kaas win directory marka operating systemkaas waa loo isticmaali karaa kan oo kusoo xiraysaa waxaan leeyahay system 32 oo systemkaan isticmaalayno kadibna waxaan leeyahay shutdown kadib waxaan leeyahay .exe oo ku dhex dhisan marka winkasaa ku aragtaan waxaan ka dhigay q win directory hadda ayaan ka dhigay system shutdown ka bacdina waxaa soo raacaya space .s space -t iyo waxaan ka dhigayaa fourkaas oo ah inta ilbirqsi ee ugu qaato ugu dambeyntiina c ay halkan leeyahay haddii aan doono waxaan ku dari karaa this is a virus kani waa virus ayaan leeyahay wuxuu haystaa American system ayuu haystaa saa awgeeda ayaa tuuga marka sidaan loo riixo sidaan ayuu noqonaya marka waa saaxadda marka wuxuu sameeyey kan win directory system 32ga meesha ayuu gelay system 32 waa soo xiray shutdown.exe/7s-t iyo 4 iyo c this is virus ugu dambeynsi next ayaan leeyahay shutdown ayaan ku daynayaa kan san ayuu noqday systemka marka wuxuu sameynayaa double click haddii aan ku sameeyo kan this is the virus isla markii wuxuu sugayaa 4 second ayuu sugayaa waa kan systemkii shutdown ayaa laga dhigay completely waa la xiray marka qaabkan waa qaab destruction lagu sameyn laakiin systemka ka dhigaya sidaan u xirayaa marka power up ayaan ku leeyahay si aan u soo celiyo oo aan isula eegno qaabka uu shaqeyn doono marka VMware-ka ayaa sidaan usoo laabanaya markuu soo laabto
oo systemka u yimaado waxaanu eegaynaa dhanka kale ayaan eegaynaa marka intaan samayn ka hor waxaan u baahanahay in aan samayno systemka dhexdiisa aan ka samayno DDoS-ka ugu dambeeya denial service-ka kaasoo ah qaabka ugu fudud ee attack lagu sameeyo domain noocu doonaha ahaado marka kaasna waa illegal ama waa sharci ma ahan marka haddii aad nooc kale aad u isticmaashid adigoon qarin website IP addresskaaga waddankaa joogta ay ku xiran tahay waddamada qaarkood xabsi ayaa lagu tagaa marka saa awgeeda waa in aad iska ilaalisaa in aan lagu qaban marka waxaan sameynaya koodkii oo aan idiin soo diri doono halkan ku diyaariyey kaasoo ah isla qaabka u shaqeeya aad echo of modeka DDoS attack by SG kaasoo ah solo groups oo bedeli karta echogan waxaan ka dhignay SG DDoS marka kan wuxuu noqonayaa set px equals server target ping.exe kaasoo ah localka taqaanaan 127.0.0.1-n5 iyo inta bytes ee aad doonaysid marka 3865 wixii ka badan waa sharci darro cidda lagu qabtana lagu xiraa 3865 bytes ayuu noqonayaa marka qaabka loo attack gareeyo oo dynamic kana ujeedaa ping ayuu ku leeyahay serverka kadibna attack hore ka samey koodkan diyaarad idin soo diraya marka waxaan sameynayaa in aan keydiyo kan oo halkan aan ka soo qaato copy ayaan leeyahay waxaan isku dayayaa halkan inaan copy gareeyo inta badan wuu qaataa inta badanna ma qaato copygan sidaan loo sameeyo tabcan waa iga yeelay kan close ayaan leeyahay safe ayaan leeyahay halkan ayaan furayaa all files ayaan leeyahay desktop ayaan dhigayaa kadibna waxaan leeyahay capital letter DDoS waxaad doontaa ku save garayn kartaa kabacdi waxaan leeyahay .bat baad kale ayuu noqonayaa safe ayaan leeyahay halkan ayuu soo fulay marka haddii laba jeer sana aan riixo marka waxaad kaloo samayn kartaa systemka ayuu ku xiran yahay right click ayaa inta badan la sameeya run as administrator markaasaa ku aragtaan administrator DDoS attack by SG marka shabakada targetka ah unbaad eegaysaa oo si IP addresskeeda loo soo helo marka tabcan shabakooyin badan ayaa jiraan marka waxaan ku bilaabaynaa as a test ayaan ku sameynaynaa kan ma suurtagelayso laakiin sidaas ayaan ku sameynaa laakiin shabakadaha kale aad doonaysid adigun bay kugu xiran si loo sameeyo marka shabakadii markaad hadaysid waxaad ku qoraysaa magacoosan ayaad ku qoraysaa tusaale ahaan google.com enter ayaad leedahay ugu horeysa bing ayuu ku sameynayaa IP address google ayuu ku sameynayaa bing wuxuu ogaanayaa inuu shaqeynayo ayuu ogaanayaa markuu ogaado mar labaad ayaad waxaad leedahay google.com marka google ha ku sameyn ee website kale tijaabada ku sameyn kartaa marka google.com markaad geshid mar labaad enter ayaad leedahay packet size-ka ayaa 3865 iska ilaali ha gaarin halka marka waxaan leeyahay as a test waxaan ku darayaa 500 ayaan leeyahay enter ayaan leeyahay attack ayuu ku sameynaya google tabcan google servers aad ayuu fara badan yihiin wax uu ka dhibayo haba yaraatee ma jirto kan marka shabakadaha caadiga ah ilaa 1000 ayaa loogu qoraa 1000 ayaad ku qoraysaa waa taageeraynaysaa marka wuxuu sameynayaa shaqo basic ayuu sameynaya kaasoo ah in uu attack ku sameeyo website-ka marka as attack as a virus maahan demand wuxuu weydiinaya waa adoo 100 qofood hal mar ay kula hadashay ma fahmi kartid waxay ka hadlayaan saa awgeeda confusion ayaa kugu dhacaya waad wareeraysaa meelaad wax ka bilaad garan maysid marka shabakadii tabcan google saa hore ku sheegay serverada ayaa aad u fara badan marka shabakadihii kale ma xamili karaan serverka iyo cpanelkood ma xamili karaan saa awgeeda website-kii down ayuu noqonaya hawada ayuu ka baxaya mar labaad ayaad ku xiri kartaa habeenkeeda uga tegi kartaa 1000 ayaad ku qori kartaa waxay doontaday kugu xiran tahay laakiin haddii lagu soo ogaado meeshaad ka soo gashay waxaad ku samaysid adigun bay ku jirtaa adi ayaa ka mas-uula marka DDoS-kana qaabkan ayuu u shaqeeyaa koodkana isagoo diyaar ah ayaa idin soo diraya insha allah ugu dambeyntii shutdownka waan aragnay kana waan eegnay facebook waan eegnay waxaa noo haray kii viruska halkan oo 58 bytes kaliya ah self destruction c ayuu sameynayaa marka waxa ugu horeyaan sameynaya indhahaas fiican u qabo double click ayaan ku leeyahay waa kana ujeedaa
wixii file ahaa ku jiray delete ayaa lagu sameynaya. Failasha kaliya uu ka tegayo waa failasha baalkii ku xiran aan delete la aan lagu sameyn karin kuwa oo access denied ayaa ku aragtaa halkan, kaasoo ahaa failal xiran oo noo saamaxaya in windowga ama operating systemka uu sii shidnaado. laakiin waxaa dhacaya gebi ahaanba waa ka saaraya wixii functional file ah. systemkana restart markii lagu sameeyo wuxuu noqonayaa invalid, waxba ku shaqayn maayaan. xitaa wuxuu ka saarayaa activationka ayuu ka saaraya, wuxuu ka saarayaa failashii kale. marka kani wuxuu anfacayaa ardaygii yiri waxaan u baahanahay self destruction inaan ku sameeyo anigoo saan u riixay. marka haddii kan la istaajiyo hadda waxba shaqayn maayaan, failashii dhammaantood way ka baxayaan. wallpaperkii waa ka saarayaa, wuxuu ka saarayaa driverska ayuu ka saarayaa, dhammaan waxyaabihii muhiimka ahaa ee operating systemka ama windowga ku shaqaynayay gebi ahaanba waa laga saaraya, kaasoo ah file aad u yar oo halkan saan u yaala. saa ku aragtaan failashii xataa waa la tirtiray, saa ku aragtaan waxba kuma jiraan, desktopkii wixii yaalo dhan waa laga tirtiray. marka wuu sii soconaya ujeeda, halkan wixii ku jira waa laga tirtiray. haddii aan idhahdo computerka right click property inuu activation ka saarin kale ayaan eegaynaa. marka qaarkood kuwan xataa ma shaqaynaya, c panelka wuu tirtiraya, gebi ahaanba wuu tirtiraya. marka hadda weli waa activate saa ku aragtaan, laakiin wax yar ka bacdi ayaanu eegaynaa siduu isu bedelo markan uu ku dhammaado. marka dabcan kuma isticmaali kartaan systemkiina caadiga ah ee shaqeeya, haddii kale waa completely wuxuu ka dhigayaa self destruction ayuu gelinayaa. marka waxaan eegaynaa wixii dhan halkan kala baxeen. failal waxaa ku jira very simple, intii operating systemkii office ayaa ku jira, wax walba ayaa ku jiray. anagana mararka qaarkood uu ku dhaafaa, kan activate ayuu leeyahay, restart haddii lagu sameeyo kan xataa uu ka saarayaa, eber ayuu ka dhigayaa. marka kan haddii halkan aan taga my computer, waxaa halkan wixii halkan ku jiray oo dhan intooda badan failashii waa ka wada saara ujeeda softwaredii ku jira halkan. marka waxaan sameynayaa bal aan restart ku sameeyo waxa dhacaya in arkaynaa. systemka waxaa ku dhacayaa eegaysaa iminka markuu sidan usoo laabto. marka complete wuxuu sameeyey self destruction oo siga ayuu sameeyey, kaasoo loogu talagalay haddii adigoo maaragtay waxyaalo kale ku sameynaya qof ama dadka shaqada kule waxyaalahaas ay ku yimaadaan ayaa qaabka loo sameeyaa. waa ujeedaa windowgii wuxuu aaday loading ayuu aaday, kaasoo ah waxaa ku dhex jira cd system ku dhex jira ayuu loading ka aaday. marka operating systemkii functionkii loogu talagalay samayn maayo, hadda dhib ayuu la kulmayaa. marka inta badan wuxuu sameynayaa crash ayuu sameynayaa, wuu crash garoobayaa, kaasoo cidnaan lagu soo celin karin. marka waa ujeeda your computer was unable to start ma samayn kara haba yaraatee, waana u dhammaatay. sidan ayuu ku dhammaaday, wax bedeli kara male, wax ku samayn kara male. marka qaabkan ayuu u shaqeeyaa self destruction, wuxuu doono qaabkan ayaa loogu samayn doonaa. marka waxaan filayaa casharkan aanu ku baranay security and testing, kaasoo ah Facebook security, self destruction iyo DDoS attack. halkan ayaan kaga baxaynaa. dabcan koodadka iyago diyaar ah ayaan idin soo diray as a project. mar walbana waxaad ka eegtaan videoga hoose ayaad ka eegeysaan. wixii macluumaad ah ee ku saabsan casharkan iyo casharada kale mar walba soo xiriira info@sologroups.com una isticmaala as a test iyo security u isticmaala. magacaygu waa macalin cabdinaasir. intaan hawada kulmi doono waxaan kaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.